السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان أصحابتك وحران جانل كينا لدن لايف ستايل إن وحيدن لي هاي ميل باجوكتان هدي هبين كوتا هبين وعن إن هدي مالين كوتا هاينا مالين ونعكسن إن أصحابتنا إن وين كرال قلنا مالمهن حقوه إن فيديو بدل مسوق قلنا مشغولة اسكجر أول إن شاء الله إن حقوه أريم فاميلي يكون مشغول سنة أنا دمان تيم كينا اسكوه حران إن شاء الله سيدا أقول أخسيها بدن إن وإذن قنعين دونا فيديو معقول إذن قنعية وإذن سوق بين دونا هدو بالله كرام نقطة إن ولا عليه جماعة إن وحنجي على سي برنامج أول بقى جبرتين مر والله ذن كده جد سوف رئيسته إن برنامج قار أي ودا سو مركب ما أنت برنامج كأن إن وجودها لجلي إن إذن لو ودا جو وحوي هاي أدون كان صوبتي زائد وبتي دتك مشغولة دتك قفك هرمركيس كو مشغولة إن دتك قفك نلوشيس كو مشغولة أي وفربتين إن أول كي وحدتكم مشغولة جدا دتك كافوق أما دتك يعني عن فاميلي جاج هين أما فريند كله هين وكافوق عادتكم مشغولة جري لكن بريها عندهم وحبات وبلنت هاي قفصكي حاجة إن حتى لقيا بينو حتى لقيا جرو وقولوا نولي هاي وزائد كوكو فريم وحد مر والبقى تلاقى قادد زائد أي كوكو مشغولان إن سيدا تاسنا ويدا عدا زائد أي أفر بدن تهاي وحان لقاقة باهي هاي مر هدا تهاي قف وصوحنا قادة إنو هرمر قارو إن وحاق روح بدن إنا أدكيسي يلتي كوز أدا دهاي إن بوشداس أن كسو رحموقانا هرمر إنا قارا ربا أديقا دور بدا إنا هرمر قارتي هدي قرقا إسكا جوغ لهاد عيالك حافظ إسكا أهان لهاد عدنا قومو مشغول لهين لكن أديقا لقاقة باهي إنا دبر أديق يلتي because in dadkaas dhan adaa doorbida inaa kasoo dhex muuqato ma ahan dhabar adeegeeda inaa yeelatid waa lagaaga baahan yahay ma dhihi kartid laakiin waxa ugu xun oo dhaco waxa waa qofka kugu mashquula hadduu kaa fog yahay waa yani waa iska difaaci kartaa laakiin mar hadduu yahay qofka xitaa kan kula dhashay hadduu yahay waa iska celin kartaa waxa ugu xun marka saaxiibkaaga uu cadowgaaga uu noqdo ama saaxiibka adigu kugu dhow oo marba aad yani sirahaaga la sheergaraysid ama noloshaada waxyaalo badan ka og qofkaas markuu cadow kugu noqdo ma dareemi kartid qaabku ku soo weeraraayo ma fahmi kartid xiliyada uu ku soo weeraraayo mana samayn kartid wayna adag tahay yani saa iskaga difaacid ama saa oga yani oga baarandigleed qaabka aad iskaga difaaci lahayd dadka kale dadka oo maxaan ku dhahaa mashquulka badanna ayagana waxaa kula talin lahaa horumarka bedelka yani horta qof bini aadan adigoo kaleeta ilaaha abuuray adna ilaaha ku abuuray hooyaa ku dhashay hooyaa dhashay 9 bilood caloosha lagu soo siday adna 9 lagu soo siday wax uu ku dheer yahay malahan yani wax maanta uu ku dheer yahay kaliya waxay tahay wuu soo kacay qolkiisu ka soo dhaxbaxay wuxuu go'aansaday inuu horumar gaaro adiga maxaa ka reebayo waxa ka reebayo waxay tahay xaasima kugu jirto qofka xaasidka ahna asigu wuxuu aaminsan yahay inuu qof kale xaasid ku yahay oo qof kale isdhaha yani qofkaneeto lead ama qofkan hoos u dhig laakiin xaasim waxa ugu filan naftiisa because intuu asigu wujuudi ku gelinayo adigu uu kugu mashquulsan yahay xogahaaga uu raadinayo maanta dhan dadka ula sheergareynayo meesha aad ka xun tahay meesha aad si ka tahay intuu dadka la sheergareynayo adigana already talaaba sii qaadaysaa horumarkaaga waa sii wadaa يعني مستقبل كاغاسي إسانوسا أسيجن استيل أذو كوجو مقينها حاسين مرك وحاب وقفلن إيو دقنمة إيو حمان نلشي سا وقفلن because نفتي سيرام بوقتي جيس مهم كأها أو يعني وقتي ما عندها دو هال دقيقة رافتو هذا نديب أسوي 20 كلمة أذو كوجو بيلدري قفكاس أذابك أقول لي سامع جبابين haddaadan u jawaabin wuu is uqdadeynaya maanta haddii qalad kugu sameeyaan ama wax dhibaato adiga ku keenaya markay sameeyaan aad aragto ama ha ahaado wax fariimo lagaaga soo gudbiyo ama ha ahaadaan wax adiga yani si toos ah u arki kartid ha ahaadaan haddaadan u jawaabin oo wax falcelin aadan ka bixinin oo markaa waxood aad dhageystid buu aad iska sii ilatirtid asaa is uqdadeynayo wuu is xumeena wuxuu is leeyahay maxaa adiga maxaa tahay qofka muxuu kugu jawaabi laayahay soo adi ultima soo isku qudadayda adigana u jawaabaynin asaka dabharan laakiin haddaad maanta jawaabsisid qofa heblaay waxaas ku dhahday aan lagu leeyahay qofa ku iimaana isla markii haddaa falcelin ka bixisid qofkaas uu is jeclaana wuxuu leeyahay maanta falcelin laga soo bixi meesha ka sii wad xumaanta qofkana way ku sii ziyaadi laakiin hadda ka aamustid wuu is garana wuxuu leeyahay maxaa qofka muxuu kugu jawaabi laayahay muxuu ku dheer yahay oo asima aamusa adigana aamus hadduu saddex maalin camal uu sidii xumaanta u sameey aadan u jawaab laga yaabo maalinta afraad qofkaas inuu wado toosna uu ku soo dhaco
bedelka aamusnaantaas aa ka aamusta darteeda inuu asigana wadada wanaag uu ku maro ayaa laga yaabaa. marka waxaa qurux badan markii wax xumaan lagu soo sheego oo lagu dhaho qofkaas saaxiibkaaga ahaa waxaa iskugu sameeyey ama qof hebel waxaa iskugu sameeyey haddaadan u jawaabin ogow adigana waxaa ka talinaysaa qofkaas inuu wadada wanaag uu kusoo dhaco. marka in laisku jawaab anaga horta qaasatan dumar haddaan ahnay waa is ognahay isla markii seef laboodaaban ahanaybo maanta haddii wax noo sheego isla markii jawaaba ka bixna laakiin ma qurux badna jawaabtaas degdega ah. waxaa fiican in ka gaabsatid waxyaalaha qaar markaa xanaaqsan tahayna si degdeg maba go-aan haddaa ku gaartid khasaaro kuu keeni karaa. sidoo kale markaa faraxsan tahay markaa go-aanada aa qaadanaysid ama ballanqaadi qof aa u sameynaysid ayadana ma fiicno. marka mana raba videoga inaa idinku dheereeyo walaaleyga qaaliga ah aan jeclahay barnaamijkan yarta aa rabay maanta inaa idinla wadaago ay tahay qofka walaalkaaga hadduu xumaan kugu sameeyo ama saaxiibkaaga hadduu xumaan kugu sameeyo isla markii jawaab ha u siinin. jawaab waxaa uga dhigtaa aamusnaan. asigana aamusnaantaas aa ka aamustay ayaa laga yaabaa inay kheyr ugu jirto oo wadada fiicneed uu kusoo dhaco. marka waxaa idinkugula talin lahaa nafteyda iyo naftiinaba aan kula dardaarmi lahaa jawaabaha degdega oo isla markii la bixinaayo inaan iska dayno khaasatan dumarkeena mar walba eed la sheego waay anaga ugu badannahay mis dhahdeen mis su-aasheen. haddii dhanka xan haddii la dhaho waxaa loo leexiyaa dhanka dumarka. xumaan wax isku dardir haddii la dhaho dhanka dumarkaa loo leexiyaa. waay marka aniga magacaas xunkaas oo aan dumarkeen la dul saaray aan isaga leexin la-nahay haddii aan dadaalno magacaas waa iska bedeli karnaa. marka waxaa idin dhihi lahaa magacaas oo xumaanta dumarkeena Soomaaliyeed loo saariyay waxaa qurux badan inaan iska bedelno oo bedelka xumaantana noogu wici lahaa aan magac wanaag aan xambaarno maadaama dumarnaane ummadana waxaa u tahay role model. qaasatan markaa hooyo tahay oo kaleeto family dhan ama mas-uuliyaddeed ay ku saaran tahay. haddii maanta dhan warkaaga uu socdo kaasaa la yiri maxay ii tiri muxuusaan uu yiri iyo way tiri haddii maanta dhan aa ku socotid ilmahaas aa korinaysid aa laga yaabaa inay xumaantaadii oo kale ayadana ay saameyso. sidoo kaleeto xaajigaaga asigana kuguma farxaayo haddii maanta dhan la dhaho heblaaya kaasi tiri maxay ii tiri maanta haddii war leh sas lasii dhex maro meesha qoyska farxadiisa ma ooleyso. marka walaaleyga waxaan idin leeyahay digtoonaada mar waliba talaabta meesha la dhigaa aan iska fiirino. khayr iyo caafimaad idin leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.